واتهاي السلام عليكم أصحابتي ذا يوتيوب كأد بان إذن سلام يا دمانتين من البودكو سوغنتهين مقعيقو وعاشا عاقنه يوتيوب كأد داوانا يسنوا إسلا عاشا عاقنه كل ما ذيني يمقالة ذيني أيو كميديا هاي مقال كاني أنا ذي سوغد بينا يو مركزتا وحان إذا لجعل هاي وحترك يواناقا asxaabtayda aad baan idinku mahad celinaya mar walba sidaad ila socotaan sidoo kale saaxiibadeyda kale iyaguna dib u daawan doona muuqaalka hadii aad channelka ku cusub tahay fadlan subscribe ha ka iloobin ku soo beer waxyaabo badan ayaad ka faa'iidi doontaa channelkayga Caasha Cagane mar kale waan idin salaamay saaxiibayaal wax saas weyn maanta ma wado balse waxaan markaasi idin wadaa موضوعيدي aan ka hadli jirnay la xiriiray ama arimaha bulshada day noqoto ama dhanka xiriirka lamaanaha maanta waxaan isdul taagi doonaa arinta ku saabsan qalbi jabka dhanka jacaylka halka dhinac ah oo arin in badan u baahan markaasi in xog fara badan ee ka helaan dadka halka dhinac wax ka dareemayo dhinaca kalena aan markaasi xagooda waxba aan ka dareemeenin marka laga hadlo jacaylka halka dhinaca mar walba waxa la yiraahdaa horta horaaba loo yiribo jacayl aan lagu la wadin waqtigaaga iyo lumanin in badanna marka laga hadlayo murtida Soomaalida aad bay ugu dhax jirtaa arimahaasi aynu markaasi aan ka hadlayno waxaana muuqato bulshadeena dhaxdeena inay marka iyaguna isla dareemayaan markaan meelahaas oo kale istaagtid alaylehe qof hal dhinac jacayl ka hayay baa wuxuu ku leeyahay Allah aniga bay iga hadashay maanta Caasho waan iska garanayaa dadka qaarkood waxa laga yaabaa xataa inaysan jacaylka ba aaminsaneen laakiin anigu waxaan leeyahay nafta u baahan jacaylka oo waa wax markaasi mar walba loo baahan yahay inkastoo dadka qaarkood jacaylka ay wax kale iyagu ay ka dhigeen sida doonaan ha ka dhigaane laakiin anigu waxaan oran lahaa jacaylku waa jiraa jacaylku waa jiraa oo hore waxa loo yiri jacaylku waa macaan amba waa qaraar qalbi waa sidoo ku soo mareen jacaylka halka dhinaca wuxuu noqon karaa in qof jeclaado qofkaasina qofka kale uusan jeclayn marka qofka jecel hadii uusan jacaylka u bandhigtay xataa laakiin asagii uusan jeclayn muxuu sameyn karaa inta badan su'aalaha dadka la weydiiyo waxa kamid ah markii lagu dhaho markii qof la yiraahdo in lagu jeclaado iyo inaad wax jeclaato yaa fiican qofku wuxuu door bidaa in la jeclaado waayo anigu sidaas ayaan door bidi lahaa dadka sidaas ay u bateen laakiin dadka qaar waxay leeyihiin inaan wax jeclaano because qofka haduu wax jeclaado waa qof marka ما wax lagu tilmaamo ma garanayo qofkii wax jeclaado un baad tilmaam ka bixin kartaa marka laga hadlo oo yaani la weydiiyo dadka wax jecel halka dhinac wax ka jecel sidee wax u dareentaan xanuunkaas iyaga ayaa ka bixin kara laakiin aad bay u xanuun badan tahay oo yaani waxaynu muuqaalkan ugu talagalnay dadkaasi iyagu halka dhinac wax ka jecel sidee wax ku dareemi karaan way wanaagsanaan lahayd qofkaasi kala jacaylka inuu u bandhigto uu sheego si uu marka uga kaabo qofkaani dareenka la jajaban yaani tabcaanka la jacaylka dhinaciisa uu u sheegtabo laakiin qofkan waxa laga yaabaa inuu sadhunka ka soo qaadin maxay tahay sababta because qofkan asaga ma dareemayo qofkan wuxuu dareemayaa laakiin dadku waxay dhahaan marka hore hal qof ayuu jacaylka ku horeeyaa markuu qofkaasi jacaylka ku horeeyo kadib ayuu qofkan isaguna gadaal wax ka jeclaadaa adigu waliga wax ma jeclaatay daawanaya sidee dareemi lahayd hadii aad qof aad jeceshahay isagana uu ku jecleen adiga ka dareen bixin kara laakiin dadka qaar yaani waxay aad iskaga dhaadhiciyaan markii ay yaani ay dhahaan hal dhinac jacayl ah wuxuu ku xanuun badan yahay yaani waan ku daalnay ma wadi karno jacaylka sidiisaba dulqaad ayuu u baahan yahay in waqti fara badan la geliyo marka aniga waxaan dhihi lahaa ahaanteyda jacaylka waa labada qof markii iyaga xushmad ay ka dhaxayso oo kale tusaale oo kaleeto qofka wax jeclaanaya marka hore qalbigiisa ma galayso in uu yaani qofkan uusan jeclaanin waxyaabo badan ayuu qofka ku jeclaan karaa waxa laga yaabaa qofkan inaad yaani aragti ahaantiisa iyo sida uu yahay iyo qaabadiisa ilaahay sidoo uu uumay inaad ku jeclaatay laakiin dadka qaarkood markaad u sheegto oo ku tiraahdo qof hebel baan jeclaa wuxuu ku leeyahay de Allah ku aruuriye hays dhibin yaani qofkan haduusan ku jecleen dhib badan ha isgelinin laakiin hadaad dhib badan isgelinin sidee ku helaysaa marka jacaylkaaga marka waxa laga yaabaa qalbiga inaad marka dhaawac aad ka dareento sideedana waxa la yiraahdaa qalbiga dhaawac laga dareemo
waa ka daran yahay marka laf jabtay oo kale oo waxa la yiri bakeeriga hadii dhulka lagu dhufto laguma celin karo sidiisii hore qalbi jabayna sidaas ayuu la mid yahay dad kale waxay yiraahdaan inta badan dadka isjecel ma ishelaan maxaa ugu wacan waxa laga yaabaa dad yani qaarkood inay aaminsan yihiin xiriirka faraha badan iyo jacaylkan la wadwado in maalmaha hore iyo xiisaha ay tahay ayaamahana waxaaba soo baxdaba baa la yiraahdo ku arkay ku caanshaqay waxa u maleynayaa jacaylkii bay nooga dheelayaan dadkaasoo dad jacaylka wax ka yaqaan ma aha dad kale waxay dhigi doonaan talow caasho maanta jacaylka maxay uga hadashay dadka Soomaalida ah in kulligood jacayl u wada hayo adin maxaan u arkaa marka yani aniga contactigeyga kale waxa laga yaabaa in 1500 oo igu jirto mobilkeyga contactiga hadii wax yariisa oo hees jacayl ka hadlayso aan soo saaro statuskeyga oo 30 second hal daqiiqo aan dhameen malaha 20 qofood oo rag iyo dumar isugu jira waxay leeyihiin soo dirsan dhibisa dhibme kulligood jacayl baa wada hayo oo meel baa wada xanuunaysa lama garanayo waxay jecel yihiin qaarkood waxa laga yaabaa inay daawanayaan ay leeyihiin anaga way naga hadashay maxaad ku jeclaatay ma isweydiisay waxaad ku jeclaatay inaad yani aad dhageysato erayada ka hadlayo jacaylka mar walbo inaad dhageysato sheekooyinka jacaylka ah qormooyinka jacaylka ku aniga hadda waxaan aad ugu taxanahay oo arimaha jacaylka gabar ka hadasho social media aad looga yaqaano farxiyo lama filaan gabar la yiraahdo meelo badan ay taabataa oo arimaha jacaylka ku saabsan yani iyada qiso ku dhacday ee ka sheekaysa hadda koor xataa lama filaan oo bixisay jacaylka ee sheega weeyde marka ma rabo ina barnaamijkaas sii galo farxiyo mowduuci inaan ka baxana ma rabo aan ka hadlayay ee ku saabsanaa jacaylka halka dhinaca dhibaatooyinka ka dhalan kara waxa ka dhalan kara dhibaatooyin fara badan waxa laga yaabaa dadka qaarkood wallahi dad baa markaad wareysato dadka horta jacaylka markuu qofka ku dhaco waxay dhahan jacaylka qofka markuu ku dhaco oo qofku wax dareemo qofna si qof basi waay waa macaan ama waa qaraar wixii ka turjumaysa qofna awood buu wuxuu leeyahay qofku jeclaa intuu u tago uu ku yiraahdo hebel miyaha anigu waan ku jeclahay qofna awood ma u lahan inuu jacaylka sheegto marka jacaylka halka dhinac waxay noqon kartaa qofka aan awood u lahayn inuu qofkii uu jeclaa intuu hortago uu ku yiraahdo I love you waa ku jeclahay oo ah wax iska easy laakiin dadka wax jecel aysan easy u ahayn marka waa laga yaabaa dadka qaarkood iyagoo wax jeclaanin oo jacayl dareemin inay qof jacayl u sheegtaan ay yiraahdaan waan ku jecelnahay gabdhaha qaar oo kaleeto aad bay ugu markaasi dhibtoodaan inay kala garan waayaan qofka runta u jecel qofka beenta ah because waxa ku badan in qof mar walba xiriir yani wax yar la socdo amal inuu ku yiraahdo I love you just laakiin ugu qofka ku jecel I love you just kuma dhahayo muddo ay ku qaadanaysaa si ila tahay aniga ahaanteeda waxa kale jiro oo marka iyaduna xaqiiqo la huba ah oo jirta ah in la yiri nolosha qaar noloshu waxa la yiri qaraar waxa la yiri noloshu qaraar iyo markaasi macaan ay marka dhadhaminaysa marka jacaylka uu taabto mar hadii jacaylkaaga gacanta aad ku haysato macaan ayaad gacanta ku haysataa oo aad nolol farxad leh iyo guur aan ka hadlaya jacaylka banaanada ah ma ka hadlaya aniga kan guurka ah ee guurka ku saleysan baan ka hadlaya dad fara badan oo igu xiran yihiin culimo laga yaabo inay yiraahdaan gabadha maxay tahay waxay ka hadashay marka qofaad waxa laga yaabaa muddo isjecleedeen oo yani inay isguursateen arabtiin waqtigoodii saamixi waaye marka la soo qaadanayo oraahyaha dhanka ka hadlaya jacaylka iyo mahmaahayada aad markaasi mar walba la yiraahdaa caashiqa calafka ka marka awood badan hadii aan si kale u dhahay idinka saxi doona dhimalahan maxay tahay marka sababta calafka hadii uu caashiqa ka awood badan yahay maxaaba calaf jacayl loo sameeynaya ma calafka la iska sugtaan dheela aniga inkastoo aan ka dambeeyo naftirkeyga jacaylka way haboontahay mar walba qofta nafta ay rabto in nolosha la wadaago noloshana de lama ogaanayo cid la wadaagaysitaa meeqa inta iyaga is jecleen la isku daray gadaal markay isguursadeen kadib uu guurkooda iskugu macaado is jeclaado maanta dunida iskugu jecel waa buuxaan aan ku soo noqdo mowduuci waxa uu ahaa ku saabsanayd qofkan halka dhinac wax u jecel dhibaatooyinka uu la kulmi karo hadii uu san sheeganin marka hadii aad wax jeceshahay ani ahaanteed caasho waxaan kugu tali lahaa wixii aad jeceshahay qofkii aad jeceshahay jacaylkaaga u sheego hadii aadan sheeganin dhibaatooyin fara badan la kulmaysa ama waxa la yiraahdaa dahano hortiisa dafana joogo waa lagaaga la hormaraya qofkii aad jecleed sheegay weyso oo yani isku qoriso qof jacayl midna ma qarsooma hore loo yiriye waxa laga yaabaa inay marka dhibaato kaaga timaado marka wuxuu ku saabsan yahay aan u soo gudbiyo fariintan asxaabta
dad fara badan waxa laga yaabaa xataa si aad ku gudbisan karto jaceylkaaga ma ahan oo kaliya qofka inaad ku tiraahdo waan ku jeclahay waxaad dhihi kartaa oo kale wax qofka wanaag badan aad tusi kartaa xiriir fara badan aad sameyn kartaa waad la xiriiri kartaa dadkiisa aad xiriiri kartaa haddii warkaas qofkaas uu yahay qof adiga kugu dhow laakiin qof kaa fog wuba kaa fog yahay soo maaha laakiin qofka aad jeceshahay markaasi asaga aan ku jeclayn saa jaceylkaaga u dareensiiso waa inaad soo jiidasho iyo waxyaabo fara badan aad u samayso waa inaad yacni aad dareentaa xilliga markaasi ku habboon ee qofkaasi lala hadlayo waa inaadan ku fogaanin inta badan wuu sii socon doonaa taxana ayuu inoo ahaan doonaa barnaamijka ku saabsan jacaylka halka dhinaca iyo saameynta uu nolosha qofka bini'aadanka uu ku yeelan doono waana soo fariisin doonaa dad wax jeclaaday halkan si iyaguna ay dareenkooda u cabiraan muuqaalkii intaas ayaan ku koobayaa haddaad igu caajista waan kaa raaligelinayaa asxaabtana aad baan u salaamayaa haddii aad janalka ku cusub tahay fadlan subscribe ku qaba ayaan ku dhihi lahaa laagta iyo shay iyo comment iyadu waaba iska bilaash oo waa muhiim in qodobka maanta aynu ka hadalnay aniguna dhiirigelin bay ii tahay inaad adiguna qaybta hoose comment ahaan kusoo dhiibato aad baan idinku mahad celinaya mar kale waa Caasha Caagane iyo channelkaygaba nabadgelyo